nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan war kalamaanay maanta war baan idin hayaa war wareegto ka soo baxday xaaji cali iyo ugaasraage oo kala wareegsan ayaa xal lagu gaaray arrimihii dalka ka jiray shima ugaas waxa liyaba noogu dambeeyay war ugaas xaquu ka socda Soomaaliya ma armiya meesha xalka laga gaaraya war ugaas waleerow ma goradaano malaagan ku weerdadaane war wareegtada ay sheega soo malaagan ka jarna malan dhon warada rasuuladinta Soomaaliland waxba ma wareejiyaan war idaacada wareegta mar hore lagu eedeeyay inay shabaab la shaqeyso xabsiga loo taxaabay war wareeg haydin dilay wareegtadan dhageysta si loo xaliyo khilaafka maamul goboleedyada iyo dagaal beeleedyada dhiga ku daadanayo si loo xaliyo cabashada ciidamada qalabka sida ay soo baneeyay difaacadoodii si loo xaliyo qaraxyada dhacay iyo amni xumida sii kordhaysa si loo helo ciidankii bedeli lahaa AMISOM 2020ka si loo xaliyo wadooyinka xamar ee joogtada u xiran si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah 2020ka si loo dhameystiro dastuurka qabyada ku daahay si loo hagaajiyo siyaasadda arrimaha dibadda ee waraaqda in yarba la soo booda haddaba si dhammaan qodobadaasi kor lagu sheegay hal rasmi ah loogu helo waxaa la gaaray go'aan geesinimo leh kaasoo ah in xilka laga qaaday taliyaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir lana magacaabay taliyaal cusub oo dhalinyaro ah war waxa aad maanta oo dhan noo akhrinaysa nuxurkoodu ma intaas uunba war taliyaasha saldhigyada la magacaabay saqdaxa habeenimo Facebook ee online ka yihiin war saqda dhexe shabaab waajifay maxaa iyaga soo jeediyay Facebook ammaan ku sugi maaye ha kala hayaan nimanku war habar dhal weyday aleela ku wala taniyo war 2 sano kadib waa markii ugu horeeyay dawladdu isku dayday inay qorshe amni la timaado war sidaas ma ahayn 30 sano kadib waa markii ugu horeysay ee 6 qarax hal maalin ay Muqdisho ka dhacaan war sidaas ma ahayn waa muggi ugu horeysan anigu in qarax ka naxay gadaal inuu naqdo gurigayga iska seexbay war waa markii ugu horeysay oo Muuse Biixi oo baarlamaanka u sheego inaan ictiraaf helayno war taasi waxa weeye waa barigii ugu horeysay oo bulshada xamar weyna badgu waxay saarkaan ar sidaas ma ahayn waa barigii ugu horeysay oo bacmadow qof sitaa ka adeegtay bakaaro war ma ahayn waa barigii ugu horeysay oo buskut suuq laga iibsho war ma ahayn waa barigii ugu horeysay oo bisado jiirka adkaabso war ma ahayn sidii loo burburay oo shacbigu beel isugu duulay buunbuuniskiya beentu waa nagu badnaayeene intaasaan ku soo koobaya yaana sii badin yaahu war saas baahina ninkii gabay ku shiidaa yiraa yaanan sii badina ninkii oo u buuxaa ma rabo inuu ka baaqdaan qaanqaaqaya dayaanay dhageysta inta ciidan kale laga horgeynayo oo dagaalka meeshii la rabay lagala bayraayo madaxda inaasaan tihiin kaama filanayne iska daaya foolxumada waa laga xishoodaye intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin war gabaga Cabdillah kula tiriye ma xaqiraysa adu asagu qaanqaaqdu leeyahay anna mirahan leeyahay wariya doctor Musuus kula tagay in kala saaray maxkamadda gobolka Banaadir iskala heer suuratul maa'idana kala saarayse maa'ida dil la muto midkiina tagay wale war ciidanka xooga dalka maanta madaxweynaha Soomaaliya kormeeray madaxweynuhu meeqa dollar u geeyahay bishaarka ma siiyay war kuwii diiwaan galsinaan buu booqday ama kuwii kala war ciidankii la rabay buu booqday aryaadaha nin hadda ka hor duq magaalada Muqdisho ka ahay xaafad la deganay burburiyay wuxuuna sheegay in laga dhigayo qabuuro lagu aaso dadka dadweynaha xaafadda laga burburiya mid kamid ah wuxuu yiri ninkii dhintay dhul waa hele halka dhaqmaya xaadhahdeen ninkii dhintay dhul waa hele halka dhaqmaya xaadhahdeen muga waxaanu fila madaxweynuhu ciidanka u booqda waa kuwii mushaarkooda hele kuwaan cabahayo waaga aan shilin helin xaal la dhahay warwarkaan ay dhaxgelinine madaxweynaha meesha uu kormeeray waa wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta tababarka General Gordon war madaxweynuhu wasaaradda gaashaandhigga xafiis buu ku leeyahay maxaad kala sheegto soo kordhay war xafiiskiisa inta u socdaa wadooyinka la xir maalin dhaweed waxaan daawanayay madaxweyne xafiiskiisa baaskiil ku aada ama bushkuleeti annagana keenna markuu xafiiskiisa u socdo wadooyinka loo xirayaa miya war Donald Trump markuu diyaarada raacay jidku
waa la xiraa war xawaadley meeshii la dhahay takfiira degan ciidanku markay ka soo baxeen shabaab qabsado war shabaab iyo takfiir ma isqaabileen war xageedu kala wada waa dameer iyo labadiisa dhagoodi war yaa dameer haygala maslina waxaas waa ku xamaaldahay war warkaan ay dhex gelinina dhageysta baabuurtii shacabka dhan waa wateen kadibna waa isaga baxeen war baabuur ha qaateena dadkii ma ka badbaad war awowgood la gub waxaad ka hadlaysaan eegga looma joogo madaxweyne asayid sheekh axmed madoobe madaxtooyow dhex fadhiyaa eeggan kade war axmed madoobe fikirkii cabduligaas ugu tagay ma wataa ama fikirkii khayr uu ku soo shubay aryaadaha fikirka cabdiweligaas waxa ku baxaya waa xaafi axmed madoobe waa ka badbaadiyey war madaxweyne xaaf xukuumadda nabad iyo nolol xiisa uma qabto wuuna og yahay war ardaygii uu fiicnaa ee dugsiga sare shariif xasan iyo jaamacaddii cabdiweligaas ka qalinjibi waa madaxweyne xaaf horta jaamacaddii khayro caasimadaha maamul goboleedyada laga furi jiray weli ardamayaysa ka soo bixin lafta gareen iyo waare iyo baasta intaa kale ka yimideen jaamacaddaasay ka soo baxeen war dhageysta warkaan idiin sheegayana runku suga wasiirka arrimaha gudaha master qarafaan galmudug u socdaa xaafna dhuusamareeb waa ka socdaa gaalkacyo ku jeedaa aryaa warkaaga haddii run lagu sugaayo xaad haddaan been noogu sheegi war ma haysiine boosaaso saraakiil caddaan ayaa maanta maraakiib ku timid waxaana laga furo shir looga hadlaya arrimaha burcadbadeedka war ma haysida caddaanku meel kastuu joogaaye kuwa indha yaryar baa maalmahan muqdisho dalxiis u joogay shalayna daljirka dahsoon bay isku sawirayeen shiinays dalxiis bay ku yimideen la yidhi war iyagoo issawirayoo magaalada qarax ka dhacay war weligay dalxiisayaal hub lagu ilaalinayo ma araga dadka yaan la sirin aryaadhaha warka inta joojisiin beledkan muqdisho meel dalxiis uga fiicanu ma jirtee bugtaan ha laga ilaaliso waxaan jirin haddaad jeriso oo lagu jeclaysiiyo jabkaagana damacu kaaga dhigo johorad nuuraysa jamashadu waxay kaa riddaa jar iyo booraane jirre weeye mas-uul jagahayoo xeerka jebiyaaye ha jarjarina waa jilicsan yaha xariggaad jiideene horta xaad mas-uuliyiinta ugu meeraysataa maxaa uga rabaa mas-uuliyiinta adiga mas-uuliyadda asagaa leh allah idin dhowre